وهاجاك خياري كسر دوادا وركي وفتسن وحنا وركر إذا لسعود سينا يا أنا جو أيان لا حسين عبدي aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan gaar ah kula qaatay magaalada Johannesburg dhigiisa wadanka Shiinaha oo ay ka wada hadleen arrimaha iskaashiga labada wadan madaxweynaha Soomaaliya uu safarkiisa ku weheliyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye ayaa ka waramaya waxyaabihii ay ku heshiiyeen labada hogaamiye waxaana warbixintaasi noo soo diray wariyahana inooga soo waramo wadanka Koonfur Afrika madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qaybgalaya shirka China and Africa ee ka dhacay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa heshiisyo kala saxiixday madaxweynaha dalka China heshiiska ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka ka socda dawladda Soomaaliya sida wasiirka arrimaha dibadda wasiirka iskaashiga ee xiriirka caalamiga ah iyo wasiirka ka socda dalka China kaas oo looga hadlayay xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo China ayaa daneynaysa qaaradan Afrika waxaana shirkan maalgashiga China iyo Afrika oo ka dhacay magaalada Johannesburg looga hadlay waxyaabo badan oo quseeya qaaradan Afrika waxaana shirkani ka qayb galay 46 kamid ah madaxda qaaradan Afrika ee 52 wadan China ayaa waxay yaboohday $60 bilyan oo maalgashi iyo deeq isugu jirta dawladda Soomaaliya ay fursad weyn u tahay maalgashigan China waxaana toddobaadkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen xeerka maalgashiga shisheeye ka oo fursad u noqonaya in dawladda Soomaaliya ay ka faa'iideysato maalgashigan China uu doonayo in qaaradan Afrika uga faa'iideysto wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye ayaa markii uu soo idlaaday heshiisyada ay kala saxiixdeen dawladda Soomaaliya iyo China wuxuu ugu warbixiyay warbaahinta ka qayb gashay shirka China waxa weydiistay inuu yimaado madaxweynaha China inay ka wada hadlaan sida labada wadan danahooga ay uga wada shaqayn lahaayeen oo arinta ay China ka wado Afrika Soomaaliya uga qayb gali lahayd markii ugu horeysay marka madaxweynuhu safarku ku yimid halkan waxay ahayd casuumad uu ka helay inay sarkaan madaxda China wada hadlay sidii dhaqaalaha Soomaaliya sare loogu qaadi lahaa sidii China iyo Soomaaliya ay iskugu imaan lahaayeen waxa laga wada hadlay xagga kalluumaysiga waxa laga wada hadlay xagga beeraha waxa laga wada hadlay xagga xoolaha waxa laga wada hadlay strategic plan positionka ay Soomaaliya ku jirto ee adduunka waxa la wixii oo Indian Ocean ka soo maro oo dhan ay Soomaaliya ugu xeeb dheer tahay waxaana laga hadlay security-ga ee Soomaaliya sidii dawladda Chinese ku ay nooga caawin lahayd aad baa looga wada hadlay waxa ugu weyn oo laga wada hadlayba wuxuu ahaa sidii loo kabi lahaa dhaqaalaha Soomaaliya sidii loogu sameyn lahaa xagga infrastructure-ka oo amba wadooyinka ports-ka iyo airport-yada waxa laga wada hadlay sidii la iska kaashan lahaa argagixisada waxa laga wada hadlay sidii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa oo loo xoojin lahaa dhaqaalaheeda Idris Abdi Hassan TV caalamiga Universal mahadsanid Idris